Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaam dhammaan walaalayaal Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan. Waa mar kale walaashan Xabsa Shire kusoo dhawaada channelkayga hooda maanta. Maanta waxaa idiin wadaa barnaamij kaleeto cusub caruurta cuntada lagu bilaabi karo iyo waqtiga lagu bilaabi karo iyo cuntooyinka nooca ay yihiin oo lagu bilaabi karo. Marka ugu horeysa horta hooyada waxaa laga rabaa cunuga marka uu dhasho ilaa 6 bilood ka gaaro inay naaska si fiican u siiso oo maxaa la dhahaye 6 bilood kaamil ah. Exclusive breastfeeding ayaa la dhahaa oo naaska joogta leh loo siiyo, wax kale loogu darin, biyo loogu darin, caano loogu darin. laakiin hooyada ka maarmi weyso caano inay ugu darto, caano formula fiican inay u raadiso ee siiso, ama shaqaha ka aado ama caanihi naaska ha ku filnaan waayo. laakiin inta badan ilaahay ayaa ugu talagalay hooyada hadday wax fiican cunto caanaha naaska cunuga waa ku filan yahay oo mar walbana lagu celceliyo. marka naaska in lagula dadaalo maadaama cudurro badan uu ka hortagayo cunuga caafimaadkiisana ay u fiican tahay. marka laga soo tago naasiinta cunuga markii uu soo gaaro 4 bilood ilaa 6 bilood waxaa jira dad ku bilaabo cunto, laakiin aniga inta badan 6 bilood ayaa caruurteeda cuntada ugu bilaabaa. waana waqtiga ugu fiican maadaama ilmaha calooshooda digestive systemkooda uu diyaar u yahay inuu cunto shiido. cuntooyinka cunuga goormee ku bilaabi kartaa? cunuga waxaa ku bilaabi kartaa markaa aragtid inuu cunto hami u leeyahay, cunugaaga 6 bil uu gaaray uu fariisan karo oo macnihii uu iscelin karo, si cabaar uu fadhin karo keligiisa uusan hore ka dhacayn markaa fadhiisisid. cunuga qoortiisa inuu celin karo, inuu gacanta afka la aadayo oo afkiisa iyo gacantiisa yani isla aadi karo oo haddii lacala waxa u dhiibto afka gelin karo. maxaa la dhahayay intaas ayaa laga rabaa calaamad inuu cunuga aad ka aragtid. iyo marka aad cuntada cunaysid uu kusoo fiiriyo cuntadii kaa raboodo afka kuusoo taago wuxuu diyaar u yahay cunuga inuu cunto cuno. cuntooyinka ilmaha lagu bilaabi karo waxaa ka mid ah ukunta qaybteeda jaalada. ukunta waa furfuurinaysaa, qaybta cadaanka waa iska tuuraysaa, jaalada waxaa ugu qasaysaa caanihiisa yarka ah ama biyo nadiif ah karkarisay. waxaa kaloo siin kartaa bataati macaan oo aad soo karisay oo shiiday, karooto la shiiday, maxaa la dhahaye bocor la shiiday, digirta cagaaran oo intaa karisay aa shiiday, oo digirta cagaarta tan oo markii cambuulada yani ay soo baxayso iyadoo cagaaraa jirta maho. waxaa kaloo sii kartaa fruitskan, waxaa sii kartaa avocado, moos aa soo jijibisay, tufaax inaa karisay aa shiiday. greenskan waxaa siin kartaa bariis iyo maxaa la dhahaye oatska ama maxaa la dhahaye mishaarida oo gasaca ku jirto oo oatska la dhaho. oatska waxaa loo yaqaanaa boorashka. marka mooska ilmaha waa loo shiidaa maalmaha ugu horeeyo ilaa oo at least 7 bilood 8 bilood ka soo gaaraya, kadibna hadhow farkeeta ugu jijibin kartaa asoo wax yar kuus la sii kartaa. laakiin 2 bilood ugu horeyso at least cunug waa inaa cuntada loo shiidaa, caano yar ugu dar ama biyo ugu shiid, si fiican ugu kari, gacmahaaga mar walba ka nadiif, weelasha aad ku siinaysid mar walba nadiif ha ku ahaadaan. cunugana cuntada ha ku qasbin, waqtiyada ee hurdada heeso uu zaaid u daalan yahay ama uu inaa cunto ha siinin. waxaa siisaa asagoo xoogaa ka hor camal caano la siiye oona zaaidna u dharagsaneen baahi zaaidna haynin, because ilmaha markay baahi zaaid qabato cuntada hadhow yani way ku rafaadaa cunitaankeeda ma ku raaxaysanayaan. waxaa kaloo sameeyaa cunuga markaa aragtid inuu gacantiisa afka la aada asiga rabo inuu is siiyo cuntada asi afka gashto u ogolaaw, si hadhow u noqdo cunug yani isku filan oo keligiis wax cuni karo. mar walba haddii adi afka ugu gurtid hadhow wuxuu kaa rajeynayaa mar walba leh inaa adi cuntada siisid. marka qaar jaanis ayaa la siiyaa cunuga cuntada inuu isku haleeyo, mar walba inuu nadiif ahaado qasab maaha. hadhow waa nadiifsanaysaa meesha cuntada ku siinaysa iyo dharkiisaba, dharka cuntada ugu talagasha usoo gelinaya, qoorta baalka loogu xiraa ugu xir si hadhow wuxuu iskugu dadaadiy aa ka dhaqdid. ma fahanteen? marka cunuga mar walba ha qasbin asagoo afkiisa kuusoo taagayo oo rabo hami u leh sii. cunuga markii hadhow uu cuntada uu ka dhargane ha ku qasbin, yani weelka inta ku jira ku dhamaystira inaa istiraadid, ha ku qasbin haddii kaleeto wuu nacaya cuntada. waxaa kaloo muhiim ah ilmaha intaan cuntada loogu darin saliid, sokor iyo cusbo inta ay yar yihiin ilaa sanad ay ka gaarayaan. waxaa kaloo mamnuuc ka inaa siisid looska, maxaa la dhahaye cuntooyinka zaaid u culculus iyo waxyaabaha spiceska ku jiro, xawaajiyada iyo basbaaska iyo dhanaanka zaaidka ah ilmaha uma fiicno. markay sanad gaaraan kadib ayaa waxaasoo dhan ku bilaabi kartaa, laakiin inta ka horeyso wax fudfudud oo calooshoodana aana dhibeynin oo dhibaatana aa u keeneynin inaa ku bilaadid ayaa muhiim ah. haddii aa wax su-aalo ay jiraan aa qabtid fadlan igula wadaag commentiga hoos.
hooyooyinka lasii sheer gareeya waa mahadsantihiin soo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.